waxa uu ku fakarayaa inuu sameeyo noocii ugu dambeeyay ee hubka qaaradaha isaga kala goosha. adduunka waxaa haysta dowlado yar iyo quwadaha waaweyn. waxaan ka hadlaynaa gantaalkan balaastiga ah oo uu farsameeyay wiil Soomaaliyeed oo ku nool gudaha dalka Soomaaliya. hal abuurkan waxa uu daqiiqado u jiraa inuu guuleysto. waa isku dayga hub aysan ku fakirin Afrikada horumarsan xataa. meeshan waa halka uu ka bilaabay wiilkii reer Turki ee Selçuk Bayraktar wax soo saarkiisa dhinaca diyaaradaha iyo hubka casriga ah oo uu maanta ka jiba keenay. laakiin farqigu waa dowladda. halka ina Bayraktar uu helay dowlad garab qabata, wiilasha Soomaaliyeed ee wax soo saarka leh waxay u baahan yihiin dhiirigelintiina si ay u horumariyaan wax soo saarkooda. gantaalkan halkan idinkaga muuqda waxa farsameeyay wiil Soomaaliyeed oo hami badan uu ku jiro. inkastoo uu yahay mid tusaale ah, haddana waxa ay ka turjumaysaa in uu sameyn karo gantaal dhab ah. farsamada hubka iyo aaladahan oo kale waa aqoonta aanan dunida lagu wadaagin marnaba. qofka bartaana waa bartilmaameed ay tahay in laga ilaaliyo noloshiisa cadowga. wiilkan Soomaaliyeed waxa uu horey u sameeyay nidaamka hawada ee lagu ilaaliyo xuduudaha hawada ee dalka. halkan oo ah guriga uu degan yahay ayuu dusha ka saaray si uu ugu tijaabiyo. waa nidaamka loo yaqaan air traffic ama raadarada hawada, kuwaasi oo loo isticmaalo in lagula socdo hawada dalalka si loo xadido dhaqdhaqaaqa aan loo baahnayn iyo isku dayada cadowga ee soo gelida hawada dalka. Soomaaliya waxay si weyn ugu baahan tahay arintan maadaama dalka uusan lahayn nidaamyo ilaaliya hawada dalka, isla markaana uusan jirin raadeer lagula socdo dhaqdhaqaaq kasta. arintaasi oo kooxaha basaaska cadowga Soomaaliya u sahlaysa in ay soo galaan dalka xilliga ay doonaan. dhalinyarada Soomaaliyeed ee leh hal abuurka iyo hindisaha waa qubad qarsoon oo la dayacay oo wax badan ku soo kordhin karay dalka iyo guud ahaan caalamka. diyaaradan dul heehawaysa hawada Soomaaliyeed waxa loo yaqaan drone ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. ma aha Bayraktartii Turkiga ama diyaarad kale oo ka timid Mareykanka. waa diyaarad drone ah oo uu Muqdisho ku farsameeyay wiil Soomaaliyeed, Cabdisalaan Xasan Nuur, oo aan Muqdisho ka bixin weligii, ayaa hindisay nooc ka mid ah daroonta dunida oo ah hubka hawada ee dowladuhu ay isugu faanaan. dowlado yar ayaa ah kuwa sameeya diyaaradaha noocan oo kale ah ee drone-iska loo yaqaan. laakiin in guryaha Muqdisho ay ku farsameeyaan dhalinyaro Soomaaliyeed waxay tilmaamaysaa mustaqbal ifaya oo Soomaaliya ay leedahay. dowladda Soomaaliya si ay dunida ula tartanto waa in ay ka faa'iideysato dhalinyaradan Soomaaliyeed ee hal abuurka guryaha la fadhiya, sidii Turkiga uga faa'iideystay dhalinta Turkiga iyo Japan oo kale. dowladda Turkiga waxay sanadkii 2005 Mareykanka ay u dirtay dhalinyaro uu hogaaminayay Selçuk Bayraktar si ay wax uga soo bartaan jaamacadaha Mareykanka. 5 sano kadib, Selçuk Bayraktar waxa uu la soo laabtay hal abuurka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drone-iska oo uu u sameeyay dalkiisa Turkiga ilaa loogu magac daray shirkadii diyaaradaha Turkiga ee Bayraktar. si la mid ah, Soomaaliya miyay ka faa'iideysan kartaa dhalinyaradan Soomaaliyeed? bal adigu aragtidaada hoos nagu la wadaag, muuqaalkana like saar oo sii share gare.